شاح ayaa ku daatay isla markiina waxay dalbatay in la siiyo $500,000 half million gabar u dhalatay wadanka Canada ayaa waxay dacweysay maqaaxida caanka ah ee laga leeyahay isla wadanka Canada ee sameeysa koofeega shaaha iyo macmacaanka oo lagu magacaabo Tim Horton gabadhan ayaa waxay sheegtay in maqaaxida ay ka dalbatay shaax shaqaalaha Tim Horton ay ku daadiyeen shaaxiyo aad u kulul waxayna sheegtay in shaaxa ay ku gubatay. Ontario woman is seeking $500,000 in damages from Tim Hortons after allegedly suffering severe burns. waxayna dalbanaysaa hadda in la siiyo magdhow gaarayo $500,000 laakiin company-gan Tim Horton ayaa sheegay in lacagtaas aysan bixin doonin oo ay tahay dacaayad iyo in been lacag badan looga qaato. The incident happened last May when she ordered a large hot black tea using the drive-through of a Huntsville Tim Hortons. wadamadan Western-ka waxa ka jiro hadii aad goob soo gasho ama mall maqaaxi ama building aad si wax ku noqoto ama dhaawac uu soo gaaro adigoo meesha joogo waxaad xaq u leedahay in magdhow lagu siiyo laakiin waxa ka horeysa lacagtaas inaad hesho inaad lawyer qabsato doodo sababtoo